بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa Dr. Cabdiraxmaan Xasan Nuux, waxaan isbishaarisay ku takhasusay caloosha, beerka, urku jirta iyo mindhicirka. Maanta waxaan ku suganahay xarunta ururka dhakhaatiirta Somaliland. Waxaan doonayaa markaa inaan duubo warbixin ku saabsan amaba wacyigelin ku saabsan kamarada loo yaqaano endoscopy-ga. kamaradaas waxaa loo isticmaalaa in lagu eego mindhicirka amaba caloosha xagga sare iyo xagga hooseba. marka kamaradaasi Soomaalidu badan waxay ka qabtaa cabsi ka qabtaa. waa procedure dhib yar oo lagu sameyn karayo office-ka, isla markaana qaata 7 minute hadduu yahay xagga sare. haddii xagga hoose laga yeelo wuxuu qaataa 15 minute 20 minute. marka qofka waxa la siiyaa dawooyin oo diidisa markaa xanuun dareemo waqtiga uu sameynayo kamaradaas maxay faa'iido leedahay? kamaradaas waxay faa'iido leedahay in lagu ogaado haddii uu qofku gaastri leeyahay, gaastridiisu dhaawacay tahay, haddii markaa uu afka ka dhiigaas meeshu ka imanayo isla markaana lagu daweeyo, haddii uu markaa wax liqi kar waayo in lagu ogaado waxa keenaya liqi-la'aanta isla markaana lagu daweeyo. waxaa kaloo jirta xaaladaha beerka in marka qaarkood ay culaha qofku ku yeesho xididdo dheeriya kuwaasoo si dhib yar u qarxi karaya. markaasoo kale kamarada endoscopy-ga ama tumbada calooshu waxay qofkii u ogolaanaysaa in lagu ogaado xididadaas meesha kaga yaalaan isla markaana lagu daweeyo. okay ta kale jirta waxa weeyaan tumbayadana xagga hoose qofka laga gelinayo wasaan sheegay iyaduna ilaa 20 minute 15 minute meelaha qaadanaysa. tumbadaasi waxay ogaanaysaa in uu qofkaasi uu leeyahay xanuun, tusaale ahaan haddii uu leeyahay kansar. waxay kaloo ogaan karaysaa haddii uu nabar leeyahay oo dhiig uu keenayay. marka qaarkoodna waxaba la sameeyaa in uu markaa qofkii kii calaamad lahayn si ka hortaga baaritaan loo sameeyo. imika waxaa laisla waafaqay daada 45 markay tahay in qof walba ha yeesho calaamad ama yaanu yeelane uu noloshii markuu 45 gaadho uu sameeyo markaa kamarada. wixii intaa ka dambeeyana 10 sano hal mar uu sameeyo. marka taas waxay keenaysaa waxay keenaysaa in bilowga koowaad ee kansarka mindhicirku wuxuu ku bilowmaa waxa loo yaqaano buro yar. buradaasaa u imaata isla markaana isku bedesho markaa kansar. taasi waxaa lagaga hortagaa colonoscopy-ga marka lagu ogaado buradii waa lagaga soo gooraya qofkii, meeshiina waa laga baabiinaya saani markaa qofkii aanu markaa u yeelan kansarkaas. waxaa jirta haddaba qof isagu riski u ah ama familigiisu qaar ka mid ah ay kansarka caloosha ay yeeshaan. qofkaasi waxa uu ku qasban yahay inuu sameeyo kamarada oo weliba uu sameeyo markaa waqtigii qofkaa ku dhacay 10 sano waqtigu ka yaryahay si markaa lagaga hortago xanuunka, maadaama la ogsoon yahay in percentage kansarka calooshu uu galo dhaxal oo la kala dhaxli karayo. marka waxaa kaloo jiri karaysaa in marka qaarkood qofku leeyahay bawaasiir gudaha kaga taala. si kamarada la isticmaalayo waxaa la sameyn karayaa in lagaga baabiyo oo dawo ahaan loo isticmaalo waa suurtagal. marka ummadda Soomaaliya ku wacyigelinaya meel walba joogaan inay kamarada ay cabsida kaga jirta ama maagida kaga jirta isticmaalideeda ay iska daayaan. sababtoo ah hadda waxaan markaan kamaradaha sameyno qof walba aad kamarad u sameyso waxaad ku arkaysaa mushkilad caloosha ka jirta, weliba mushkiladaasoo ah mushkilad khatar ah oo stage dambe oo waxba lagaga qaban karin maraysa. marka haddii si routine loo isticmaalo waxay keenaysaa markaa in xaaladii la ogaado tiyo bilowa oo markaa wax laga qaban karay. Assalaamu calaykum.